Halkani waa xarunta Maam Ugaasa Rehabilitation Center, xarun lagu dhaqan celiyo carruurta darbijiifta ku dhaqan Muqdisho. Halkani waa xarunta Maam Ugaasa Foundation, waa xarun lagu daryeelo carruurta darbijiifta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Halkani goortii aan tegaynay waxa ay carruurtu ku jireen waajibaadka Rabbi oo waxa ay dukanayeen salaada maqrib. Kadib markii ay salaada maqrib dukadeen ayay u duceeyeen ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale halkaasi waxa ay ku soo bandhigeen anaashiid qurux badan iyo sidoo kale waxyaabo badan oo carruurtani halkaasi lagu baray. Sidoo kale waxa aan booqasho ku sameynay waxay ahayd xarun carruurta lagu baro barashada samaynta roodhiga iyo sidoo kale macmacaanka qaybihiisa kala duwan. Xaruntani Maam Ugaasa Foundation ayaa dhabar ku dhigatay in ay soo saarto carruurtii dalka berito mustaqbalka u ahayd, sidoo kale carruurtii beri ifin الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حسن وقنا عذاب النار سلادي إن لا أقبله سونكي كذا إله نقرسيو أنت جرين إله عافيو dadka asbalku jiraan asbalka ilaa ka bixiyo inta muraadku dalac usaalo maamugaas oo darbigaas iyo meelahaas ajifin naga soo wada khayr ilaasiyo dadka inaa meesha markeen dharkeen waxa noo keen oo naga caabiyo oo dhacanta naga baabiyay ilaa khayr ilaasiyo faatax وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا تجا بالأمر مضاع تجا شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع tukando mola garajis wadi macho barambara dushoy way dusha sana balwene hasan walalo hasan balwene arurta iskulka walo adiya walo sabiya usabiya قلبي أديا كويني هويا أنت مقدوايا عندي عافي ماذا إبوينو كوبريايا ددوينو إداوانايا متقانتا وايا هويا وجندا هويا وجندا هويا وجندا هويا وجندي أدونكي سبحان الله والحمد لله المناد مسجد علمية ومسؤولية مركز دقاق كلمة عن مروين كلمة عن بايلا أخون بايلا
ina aqoon koragsado dalkeeya anfac dadaalkii la yimiday allah yow ii gargaar ilaahayow nu gargaar ilaahayow nu gargaar الجنة وأنت عارفه نعم نعم نعرفه هم واحد أبو بكر اثنين عمر ثلاثة عثمان أربعة علي خمسة سعد ستة سعد سبعة سعيد ثمانية سهيل تسعة أبو عبيدة 10 عبد الرحمن بن عوف أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عاصم زينب أمية سينينا بن عبد مناف بن قتية بن كلاب بن مرة بن كعب بن مؤية بن قنيد بن فهرة بن مالك عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جو أهتمك maanta waxaan joognaa ku sugannahay ku soo booqanay حرادة أقوم ugaas saciid aan u dhiibaynaa استدو جيتان عاوة وحن جوجنا حرادة ماما أوجاسا رنتي xarunta dheh xarunta ugaas waxaan joognaa runtii caawa xarunta maama ugaasa runtii maanta inaan caawa meeshaan joognana waxay noo tahay farxad weyn maadaama aan oolaadeena Soomaaliyeed runtii magaalada ku daacayna qaar ka mid ah oo maanta aad ka dheehanayaan wajigooda quruxda badan alla ka suko waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol maamadii maanta ku dadaashay oo maanta heerkan ay taagan yihiin gaarsiisay waxaan leeyahay maamo waxa taa hooyada Soomaaliyeed waxa taa hooyadii mudneed in lagu dayan lahaa waxa taa hooyadii maanta noo iftiimisay in anaga damiirkeena dhum inaan dib u soo celino waxaan ku rajaynaynaa inkastoo abaalkaaga aan soo gudi karin cib ibl aadan aan soo gudi karin abaalkaasi waxaan ku rajaynaynaa adduunyada khayr aakhirana janno waxaan u rajaynaynaa adduunyada khayr aakhirana janno sidaan hore idinku sheegay dhalinyarta Soomaaliyeed caawa barnaamijkan ujeeda u qabanayna waxaan rabnaa oo haduu alla raali ka noqdo si aan anaga ugu dayano maama ugaasa oo runtii farxad maanta noo maanta maadaama ay wadadii noo iftiimisay annagana wadadaasi inaan qaadano oo wadadaasi caruurtaasi ku sii qurux badnaan lahayn ee noloshooda ku sii dhis lahayn ee aytuunkooda ku qabsan lahayn inaan annaguna qayb ka noqono ayaan caawa anagoo teamka Triple T ah naga soo gooday cidna soo qasabtay aysan jirin cidna soo wadaysan jirin waxaan ku imaanay hobbigeena waxaan rajaynaynaa haduu alla raali ka noqdo intii karaankeena intii dhibic dhiiga jirka teamka Triple T all of them intii dhibic dhiiga jirkooda ku jirto in aan ka jiifan doonin barnaamijkan waxaan u mahadcelinayaa mahad lama soo koobi karo runtii mahad lama soo koobi karo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamada Soomaaliyeed ee maanta oolaada sida quruxda badan ugu soo dadaashay waxaan ku dheeyaa hooyo waxa taa hooyadii mudneed in lagu daydo runtii abaalkaaga adduunyo ma soo koobi karno aakhirana waxaan ku rajaynaynaa jannatul firdaws aakhira maxaan u rajaynaynaa maama ugaasa jannatul firdaws runtii oolaada ducada waxaa la yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ducada waxaa ugu daran oo laga aqbalaa caruurta iyo dadka buka balse maanta labadii baan isku darsanay caruurna waa nahnay bukadana waa nahnay because waan buknaa waxaan u buknay cilmi waxaan u buknay nolol waxaan u buknay aayatiin balse aayatiinka iyo noloshii waa nolol iftiimiye maamada maxaa u rajaynaysaa jannada firdaws maamada maxaa u rajaynaysaan adduunyada maxaa leedeen caawa waxaan rabnaa dhalinta Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa waxaan dirayaa fariin horena waa idinku sheegay marxaladda maanta haysato uma baahna siyaasi uma baahna maxaladahay oday uma baahna wixii u baahan tahay dhalinyarta Soomaaliyeed wadan walba waxa dhistay dhalintiisa dhalinyartii birita dalka dhis lahayn inaan garab qabno diyaar muunahan teamka Triple T ee dhamaan muslimiinta Soomaaliyeed diyaaran waxaan rajaynaynaa insha Allah duulayd macaawin anigana ka qayb qaadanayna ardaydan si ay ku soo kobcileed aqoontooda waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadan doono maalkeena waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadan doono caruurtan aqoontooda waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadano caruurtan sida ay ku heli lahaayeen farxad iyo damaashaad Allah ayaan u mahadcelinayaa waxaan ku soo dhaweynayaa maamada
madaxweynaha tiimka Triple T. سعيد ومحسن تاي maadaama aysan nolosha kaliya ahaan in wax la cuno la seexdo ay waxyaabo badan u baahan tahay activities anaga walaahi tarun ahaantii ani ahaan nasiib uma yeelan horta inaan dalkayga wax ku barto in wax kamid ah dalkayga historygiisa aan barto ama hidii dhaqankii backgroundkeeni meeshaan ka nimin awooyaasheen laakiin insha Allah waxaan jecelnahay ubadkaan inay nasiib u yeeshaan anagana aan la barano inaan barno kaliya maaha inaan la barano hidii dhaqanka maanta halkaan ku soo dhaweyneynaa maam Ugaaso anagoo marti u ah ayaan haddana marti ka dhigaynaa waxaan rabnaa inay noo soo dhawaato insha Allah in yar oo ka mid ah hidii dhaqanka ay xoogaa nooga sharaxaad nooga bixis insha Allah qaybta barashada rootiga ee xarunta Maama Ugaaso Foundation xaruntan waxa waaye xarunta lagu sameeyo macaanka iyo sidoo kale rootiga iyo wax walba oo macaan ah arkaysaan macaankii oo ardaydii baraayo caruurtii baraayo sida loo sameeyo lahaa macaanka Escurigi. Mas escurigi. Escurigi. Senta amarelo. Aí, usando. أنا بشوف إنه خلال كهاية. سأل ما تفعلش. أنت كنتي هل كنت ميرت؟ كيريا. بسم الله. بيسا. سردينا. خلاص. ولد أنا صباح. أيوة الصبح. سرعة هي صح هي خلاص سكولجي مركز كيسة سكولجي هاي سكولجي هاي ساعة مركبة هاي هل حبة الشوكولاتة تسميها مركان سوقه سوقه سان بلاري هاي أساس ده سوقه شوكولاتة كده بس هاي وريتش طرقية الباش هاي فري شوكولاتة بس ترتيب حوجة وسمين باش ترتيب كذا بس ما شاء الله خلاص سوي بدي شوكولاتة مرة مركب بدي شوكولاتة كلي هي شوكولاتة يا بس خلاص شوكولاتة مركز شوكولاتة سك ترتيب فري أفكيس السنية هو تنكش سميه مركب سوا لج أفكار ولج حبوت بوتين ترتيب بوتين أنا سمعنا بس خلاص قاعد ساكن وكي شوكولاتة يا خلاص وصاري سام فانت سوق وأنا وسمعنا كده سك عجينك ساس ترتيب فير أنا يا فير سوق حكم ساري ساس لدي سبس استاذ مدينة خلاص شوكولاتة ده مرتين سامرك لا تسامرني أفكيس ساسا دوا سمي أفكيس مجد سان لا يارو مرك ساسن دهت أنا يارو
اوكي ساسو صاريسا marka mid kala soo qabso kan waa cajiinka khamir tartiib khamir bixin cajiin tartiib soo qabo tartiib soo qabo gacanta xir hudami riix gidi marka ay qabso bahasha marka xoog ugu dhijiniya gidi marka hadan saan u bari soo ay shukulaato mari marka shukulaatada mari اوكي بوبسي مدب ku jiraan soo bixinayna markaan diyaar waay suuday ay kidi marka wareegis ku sinya soo qarkisina afkiis ay ho xoog u dhiji afka ka dhiji afka tartiib adboodboodka jooji tartiib saan qowm soo kiiskan ka dhiji shukulaatada ka soo bixisa dhow ay sarhaga ay mari adiga baasha mari sisin mari marka dabkan soo bixinayna wax dab ku jiro waxa noogu jiro rootiga dab bislaan ugu jiro sabix kan kala balaq baabkan kala balaq xagga marana fiirso saan u qabo kan ana usneeyay kan in ay soo xira in kala wareejinay kan ka horeeyo halka soo qaadana jeediye ay ceerimi am bisel way waxay marino waxay ma dhimin sabsili waxay dhimin saana u reejinay fiir ma dadka marsiinay dib soo saarayna ma xir wax yar xir خلاص وحيرة ودم وصوب بيننا مركب إن شاء الله خلاص يصير كان أقول هاي فرق باك مركب خلي بحنا مركب السعراء لو حب بلق لو الباب بلق وصع قبس ستيك مركب سام وصل ميزان كوديا إنه كان دعت الأمر سام صار هالكاس صوبح هالك كله صوبح يسك صوبح بلع كريك وريج سان وريج مكوسان قوله سك أنا كنت سنة كما قلدين مو كل جانا صح كحير قلدين روتي كان واتمرتي معاكي سو دوي غانتا سو دوي غانتا كلا سو دوي سو مرقات سو يلا سو صار الكاس واتمرتي وكاس روتي تمرتي ما شاء الله حرصت ما مقاسو وجدين قيمتي فورمولا واتنا lagu baraayay qaybaha kala duwan ee macaanka xarunta Mubas Foundation yani xaawad badan ee carruurta u qabata ujeedin indhiina idin macalin ah waxba idin kaga sheekeynayo inta in ka badanna waa arki doontaa nala socdo iyadoo aan wali dhex joogno xarunta lagu sameeyo roodhiga iyo sidoo kale macaanka ee xarunta Mama Ugaaso Foundation Mama Ugaaso Foundation ayaa qaybtani carruurta ugu talagashay in ay ku bartaan macmacaanka qaybihiisa kala duwan sida roodhiga iyo sidoo kale doolshada iyo sidoo kale wax walba macmacaan sheegta halkani waxa u jooga macalin bara ah isla markaana carruurta bara sameynta roodhiga iyo sidoo kale macmacaanka qaybihiisa kala duwan Mama Ugaaso Foundation waa qofka kaliya isku xil saaray caawinta iyo sidoo kale daryeelka ubadka Soomaaliyeed u baahan daryeelka dhabta ah carruurtani Mama Ugaaso Foundation ay hayso waa kuwa aan lahayn tol iyo waalid intuba isla markaana iyadu u ah hooyo iyo sidoo kale aabba iyo wax waliba iyadoo Mama Ugaaso Foundation kaliya garab iyada kaliya ku tahay oo aysan jirin cid garab ku siisa carruurtani tan iyo intii ay burburtay xukuumaddii dhexe uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Bare
waxaa dandara wadooyinka magaalada ku ahaa caruurta agoonta iyo sidoo kale kuwa darbajiifka ahi ay dantu darbajiiftu ka dhigtay. ugu dambeyn waxa ay heleen xarun ay kaga kaaftoomaan dariiqyada kala duwan iyo sidoo kale isticmaalka waxyaalaha maanka dooriya, iyagoo xaruntan Maama Ugaasa u ah xarunta keliya ay ku indhafiiqdeen, iyadoo Maama Ugaasa ay inta badan sheegtay in aysan waxba ka rabin, keliya ay u shaqaysanayso maalinta qiyaamaha iyo sidoo kale qabriga. ugu dambeyn Maama Ugaasa Foundation ayaa caruurtani u ah isha keliya ay maanta ay haystaan. لما شكين كان so sweet delicious amazing والله بالله حتى لقى مهلو مهردنا أفرنا إن شاء الله we will buy it والله more and more to support the children إن شاء الله. halkan waa foornadii ciyaalkan aan ku shaqo barnaa ma sha Allah Maama Ugaasa qeyd Allah siiyo aniga macalinkeeda ahay meeshaan aan ka shaqeynaa ilaa iyo dhowr 12 cunug ka badan aan isbuuc la soo saaraa Ilaahay marka insha Allah Ilaahay soo dhawaada idinkana insha Allah Ilaahay macaan noocyo badan bulshooyinka iyo macluumaadka iyo buskudka iyo wax dhan aan soo saarnaa ciyaalkan sidoo kale waa barnaa alxamdulillah maama qeyd Allah siiyo meeshaan ay noo furtay anagana insha Allah xoogayna waxa Ilaahay na baray insha Allah ku tawrucina Ilaahay. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عاون وهبينك الحمد لله وفرحت له وأن معيسنها عفماد أن قبل الحمد لله إله ما هاد إسكاله وحنا لجوج محيط تيم كمنار لولي ما شاء الله ورالكين صادق صونا ما شاء الله تريبل تري تيم كودا شلي وجمعة أهد ليذان كوكولاني farxaday ahayd alxamdulilah ma hadale maantan waana soo booqdeen aad iyo aad idinku mahad celinaa qayb kale waa cusbaano عبد الله سعدان ما شاء الله نصوب بوقته ما شاء الله واي انت نصوب بوقته انت وحنو كنت انت سلام نو كنت انت ميعيس نو كنت الى خير بدن هسيو هذا idin kugu duceynayna waa idin mahad celinayna ina un idin mahad celin idin duceyna ma ahe wax kale oo maxayto magaciisi male la nuriidu minkum jazaan wala shukuran waaye maxayto ilmihiin waaye dhalinyarada walaalihiin waaye aniga meeshan waa sameeyay alxamdulillah ilaahay ii fududeeyay ilmihii waa keen oo fikirkii waa sameeyay laakiin meesha inay sii socoto shaqadii in la wada meesha ilmihii in wax la baro ilmihii in la dhiiri geliyo maxaytood wax dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan oo idinka ah ka mid tihiin laga sugayo waay aad idinkugu mahad celinaynaa jazaakumullahu khayran idin leenahay waa macallin journalism ayuu bartay kuna rabaa inuu u deeqo volunteer ahaan
ilmaha cilmiga u bartay yaa iska heli kara intii u baahan qaar hadday farta taagtay maasha Allah adi intii u baahan journalism media maasha Allah waqtiga oo si awoodi ayuu imaanaa insha Allah diyaar waa insha Allah taala inta mahad celinayna wixii aan u awoodno bishii oo soo aruurinayna aniga manaan ahaan everything mas'uul ay iga saaran yihiin aan caruurteedii kale oo banaanka maanta jirta insha Allah ayagana waxaan jeclahay inaan caruurtan ku soo daro walaalahooda teamkeenana inaan si gooni inaan isku xilqaano anaga ahaan xitaa ayaan dad kale loo baahan inaan iska aruurino wax at least xitaa ama raashin ha u noqoto hal kursi ha u noqoto busta ha u noqoto wixii awoodna inaan la baqan aan keeno insha Allah aada u mahadsantiin aada idinkugu mahad celinaa insha Allah xarunta Maam Ugaas Foundation ugu dambeyn waxa ay garab ugu baahan tahay guud ahaan Soomaaliya weyn si ay u caawin lahaayeen caruurtani darbajiifta ku ahayd gudaha magaalada Muqdisho ugu dambeyn iyadoo xarun u furtay isla markaana xaruntan ay ku xanaanayso isla markaana kaga fikirto cunadooda iyo sidoo kale jiifkoodii iyo sidoo kale waxbarashadoodii Soomaalida oo inta badan lagu yaqaan dad wax baxsada ayaan ka seexan doonin Maam Ugaas Foundation isla markaana ku caawin doona hadba wixii ay awoodaan caruurtani darbajiifka ku ahayd gudaha magaalada Muqdisho isla markaana lagu soo celinayo sidii ay ahaayeen ugu dambeyn sidoo kale hay'adda Sooha ayaa caruurtan u keentay cambahan quruxda badan maadaama ay caruurtani ay aad u camba jecel yihiin camba kaliya kuma ekaan sidoo kale waxaa ku jiray isbaandhayska aad arki doontaan oo isaguna ka mid ahaa hadiyadihii ay ugu talagashay hay'adda Sooha oo ka mid ah hay'adaha ka howlgalaya Soomaaliya iyadoo ay kaabigan ugu soo hayso bishii barkasneed ee Ramadaan isla markaana ay tahay bishii khayrka bishii raxmadda iyadoo ay nagu soo leedahay aan caruurtani Soomaaliyeed garab istaagno maxaa yeelay waa caruurteeni way wiilasheeni aan garab istaagno maanta ay garab istaagno ugu baahan yihiin iyadoo bishii Ramadaan ay tahay bil khayr bil raxmad aan ugu faa'iideysano aan ajir ka raadsano sida ay Maam Ugaas ay ajir ugu raadsanayso walaalayaal iyadoo aad arkaysaan inaan maanta booqasho ku nimid xarunta Maam Ugaas Foundation Center oo ah xarun lagu dhaqan celiyo caruurta darbajiifka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho waa markii ugu horeysay aan booqasho ku nimaano xarunta Maam Ugaas Foundation ee magaalada caasimadda Muqdisho inagoo team Triple T ayaa waxaan imaanay halkan oo xarunta Maam Ugaas Foundation iyadoo booqashadeena ahayd booqasho si kadiis ah ku dhacday meesha aan maanta joogno waa meesha aad arkaysaan isla markaana lagu dhaqan celiyo caruurta halkaad arkaysaan ay tahay halka lagu dhaqan celiyo caruurta darbajiifka ah iyo sidoo kale caruurta agoonta ayaan haysan meel ay ku hooyadaan waxaana isku hoshay Maam Ugaas